عصابية دولدوغيو عوبارتا ديريو عداليكو دلاتي cadale waa degmo kalluumaysi iyo ganacsi oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna Muqdisho u jirtaa fogaan dhan 180 kilomitir. Radio Dalsan waqtiyadii ugu dambeeyay waxay ku jirtay howlgal ay dhageystayaasheeda, akhristayaasheeda iyo daawadayaasheeda baraha bulshada ku baraysay goobaha quruxda badan ee ay in badan aqoon u lahayn. koox shaqaale ah ayaa loo diray degmada Cadale si ay u arkaan waxa xaqiiqda ah ee loo tabin karo Soomaalida. caadiyan ku dhawaad 4 saacadood ayuu qaataa safarka gaadiidka ee Muqdisho ilaa degmada Cadale iyadoo la sii marayo ceel macaan iyo warsheekh ee dhulka xeebta ee bacaadka badan oo kaabiga ku haya xeebta quruxda badan iyo badweynta Indian Ocean. shaqaalaha waxay guureynayeen habeen oo idil waa meel ammaan ah inkastoo aan dhowr jeer ciriiri kala kulannay dhulka bacaadka miiran. waxaan Cadale gaarnay abaarihii 10kii fiidnimo kadib markii aan socdaalkeenna ka bilownay Muqdisho abaarihii 5tii iyo bargalabnimo. degmada yar ee Cadale waxay ku hoos jirtaa gacanta maamul ee ciidanka qaranka Soomaaliya. dhowr kiiloomitir ee duleedka degmada Cadale waxaa ku taala xero military oo saldhig u ah ciidanka Burundi ee qaybta ka ah nabad ilaalinta AMISOM. aroornimadii waxay shaqaalihii socod tamashlayn ah u aadeen si ay u soo arkaan xeebta Cadale. waa xeeb aad u ballaaran oo bacaad cusub ah leh waxaad ku arkaysaa doonyo kalluumaysi oo badan halka dekada ah ee ay kalluumaysatada isticmaalaan. badda waxay ahayd meel aad iyo aad loola yaabo. midabka badda ayaa ahaa mid aad u muuqday oo aad awoodi karto inaad aragto bacaadka yaalla salka badda. xeebta degmada Cadale waxay si fudud ku noqon kartaa mid ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan ee Afrika iyo caalamka oo idil. waa meel ku wanaagsan in lagu dabaasho oo aan haba yaraatee lahayn ciriiri iyo buux sida caadiyan ka jirta xeebaha kale sida xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. marka aad eegto hareeraha xeebta Cadale waxa ku yaala dhulkaymeed juq ah oo ay ku yaalaan geedo aan noocooda laga helin gudaha Soomaaliya kuwaas oo loo maleeyo inay abuureen xilligii uu maamulka gumeystihii Talyaaniga joogay degmada Cadale. dhulka kaymaha iyo xeebta waxay muuqaal dambeed aad u qurux badan u yihiin in dalxiisayaasha isaga qaadaan sawirro xusuus leh. kooxda shaqaalaha ah ee ka socotay Radio Dalsan waxay yaqiinsadeen inay xitaa aad ugu sii qurux badnaan karto haddii loo isticmaalo diyaaradaha drowniska ee ay kaamerooyinka ku xiran yihiin si dusha sare looga sawiro degmada xeebta leh ee Cadale. waxaan booqannay barta ay ku soo xirtaan doonyaha kalluumaysi. qaybtan ka tirsan Cadale waa meesha ugu mashquulka badan iyadoo kalluumaysigu yahay dhaqdhaqaaqa ugu ballaaran ee ka jira degmadaasi. Cadale waxaan ku naqaanaa argosatooyin waaweyn halkan xitaa waxaan ku qallajinaynaa libaax badeedyo yaryar iyo halkan oo ay yaalaan kalluun kale. mararka qaarkood noocyada kalluunka ee malaay gaduudow ama boqorka kalluunka ee kingfish, damburi ama faraska badda red snipers ayuu yiri Tuula Maxamed oo ah kalluumaysato la hadlay Radio Dalsan. dalxiise kasta waxa uu dareemayaa macaan marka uu afka gashto kalluunka marka uu joogo Cadale. deegaankan xaqiiqa ahaan waa u ammaan dalxiisayaal inay yimaadaan sida aad idinka aragtaan. waa degmo qurux badan joogitaankeenna waxay hubaal gelinaysaa inay dadka deegaanka sii wadan karaan noloshooda iyagoo aan la hubinin ayuu yiri Colonel Qonde oo ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliya ee SNA. mid ka mid ah dadkii booqday Cadale ayaa aad u xiiseeyay inuu wax ka ogaado inay Talyaaniga mar u isticmaali jireen Cadale xarunta maamulkooda gumeystaha ahaa. ciidamada gumeystaha Talyaaniga waxa saldhig u ahaa Cadale waxaana wali lagu arki karaa haraaga dhismooyin qadiimi ah oo ay adeegsan jireen maamulkii gumeystihii Talyaaniga. Talyaaniga hadda ku yimid khasaarta. Talyaaniga saldhig ku sameeyay ciidan ku sameeyay. saldhig military. ciidankiisa ma joogi jireen deganaa jireen ciidan Talyaani. meeshan Italy la jira Italy oo baash Talyaaniga aad u jeclaa. Italy. muxuu soo gaartay? sawaal. meeshan Soomaali badan ciidamo oo ka qorto oo ku sameystay Talyaaniga sadeganaa jira. in la booqdo goobaha ganacsiga ee Cadale iyo tuulada kalluumaysiga ee u dhow dekada waxay didiilo gelin kartaa qof kasta oo soo booqda. dadka deegaanka waxay soo dhaweeyaan oo ay caawiyaan ama warbixino siiyaan qof kasta oo Cadale soo booqda ama qariib ku ah. kala dhaqan duwanaanshaha degmada Cadale waxay sahli kartaa in la arko qaabka loo kalluumaysto iyo ku safarka badda oo soo jiidan karta dadka ka kala imanaya dhammaan dhulka xeebeleyda ah ee Soomaaliya iyo kuwa ka sii fog.
waxaan la kulannay nin ku hadla luqadda sawaaxiliga oo ku noolaa cadale tan iyo sannadkii 1960kii isagoo kalluumaysato ah waxa uu inoo sheegay inay jiraan dhowr qof oo kale oo ku hadla luqadda sawaaxiliga oo ku nool degmada cadale watu wangu hapa sina watu wangu mimi sina watoto wala sina bibi hapa yani mimi peke yangu unaishi vipi maisha kiuchumi kiuchumi ni hivi tu naingia baharini kila siku yani huna maisha fulani ambao unapata yani iko siku unapata siku nyingine unakosa ni hivyo tu. Maisha ya kisasa sio maisha kama ya zamani. Maisha ya kisasa yani amekuwa kidogo sio maisha mazuri. Lakini kwa upande wa amani halale ni mzuri kabisa. Yani amani yake iko mzuri. Haina wasiwasi. Sidoo kale labaatameeye qoys oo u dhalatay dalka Yemen ayaa iyagana ku nool xaafadda Danwadaag ee degmada Cadale kuwaas oo ku shaqeysta xirfadda kalluumaysiga. abaartii dabadheer ee dalkeena ka dhacday sanadkii 1974kii waxay dawladdii kacaanka soo dejisay degmada Cadale qoysas tabaalaysan oo laga soo daadgureeyay gobolada Mudug iyo Galgaduud kuwaas oo 300 oo guri looga dhisay xaafadda Danwadaag oo kamid ah xaafadaha degmada Cadale dhinaca matalaadda siyaasadda mudanayaal badan ayaa ka soo galay degmadaasi xilliyadii daakhiliga iyo dawladdii rayidka waxaana xildhibaanadaas kamid ahaa abukaate maxamed sheekh axmed gabyow oo ahaa mudane xilligii daakhiliga laga soo doortay Cadale waxa kale oo abukaate gabyow ahaa wasiirkii ugu horeeyay ee wasaaradda dastuurka Soomaaliya muddadii u dhaxaysay sanadihii 1956 ilaa 1960kii axmed maxamed afrax axmed shuqul oo ahaa xildhibaan laga soo doortay Cadale علي محمد هرابة علي هجري وإسنا لقصو دورتي دقمداسي إيا علي مهدي محمد وأها حلبان لقصو دورتي دقمدا عدله سنديه يكون سقال بقول لحدن يسداد دي إلا كون سقال بقول سقال يلحدن كي وحاكاها وحالي هذا أحمد شغل مقالك عن قهر وحاهستي حدايال وحاك سوقنا على هجري يخطوحوح لبرمجيو وسيرها يعني si kastaba ha ahaatee degmada Cadale ayaa ah goob aad qiimo ugu leh in la booqdo loona dalxiis tago عصابية دولدوغيو عوبارتا ديريو عدالي كودالاتي